يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك اقرعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. su-aasha 12aad ee ka mid ah su'aalaha ugu dhex faafitaanka badan dadka aan muslimiinta ahayn waxa weeye haddii islaamku yahay diin caalami ah haddaba muxuu ugu ogolaanaynin dadka aan muslimiinta ahayn inay galaan Maka iyo Madiina haddii islaamku diin u yahay dhammaan basharka maxaan dadka aan muslimiinta ahayn loogu ogolayn inay galaan Maka iyo Madiina jawaabta su'aashaasi sidan soo socota weeye dawlad kasta waxay leedahay manaadiq iyo meelooyin lagu magacaabo mandiqooyinka amniga ah mandiqooyinkaasi amniga ah ee lama galaanka ah waa mandiqooyin aysan geli karin ilaa askarta iyo dadka u taagan ilaalinta dawladda maahe iyadoo jirto anigu inaan ahay muwaadin hindi ah haddana liima ogola inaan galo manaadiqdaas amniga ah ee lama galaanka ah inaan ka soo horjeesto arrintaasna suurtagal iima aha waa sidaas ayaga waxaa qusaysa himaayada iyo ilaalinta waddanka iyo amnigiisa inay ilaaliyaan waa loo ogol yahay meelahaas manaadiqdaas amniga ah inay galaan tusaale ahaan Maka iyo Madiina labadaasi xaram waa labada mandiqo ee amniga ah ee islaamku iska leeyahay sidaa darteed kaliya waxaa geli kara qofka rumaysan islaamka jecel diyaarna u ah inuu islaamka dartiis u dhinto sababta awgeed Allah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku leeyahay kuwa gaalada ayaysan u dhawaanin masjidka xurmaysan sanadkan kadib amarka uu alla nasiiyay oo kaliya annagu waan waafaqaynaa sabab kale waxa weeye marka aad rabto wadan inaad gasho waxa kugu waajib inaad fiisa hesho dawladda wadankeeda ma gali kartid fiisa la'aan dawladaha ugu adag ee fiisa laga helana waa dawladda Mareykanka su'aalo badan ayay ku weydiinayaan hadda su'aalaha waxay ku dareen argagixiye miyaa tahay qof inuu ku jawaabo laga yaabaa ha xukuumadda inay weydiiyaan raba waa xukuumadda Mareykanka ku jawaabay ma jira miyaad u nasab sheeganaysaa nidaam argagixiye ah xajiib waxaan rabaa inaan weydiiyo qof ha idin qoray ma jira ha argagixiyaan ahay waxaan u nasab sheegtaa nidaam irhaabi ah su'aalo badan ayay ku weydiinayaan waxaana kugu waajiba dhammaan inaad dhameystirto si aad fiisa u hesho Singapore ayaan aaday markii ugu horeysay sanadkii 1986 foomka hijrada waxa ku qornay waa dhimasho ka ganacsiga muqaadaraad taa macnaheedu waxa weeye hadii lagu qabto adiga oo muqaadaraad wada ciqaabtoodu waa dhimasho suurtagal ma ahna dhahdo ciqaabta dhimashada waa cuquubo adag iyo wax inta lamida hadii aad rabto inaad Singapore gasho waa inaad waafaqdaa hadii kala haba imaan halka sida darteed hadaa rabto inaad fiisa hesho waxa kugu waajib inaad qawaaniinta wadamadaas aad waafaqdaa hadda fiisaha lagu galayo Maka iyo Madiina waxa weeye inaad labadaba bishimood ka dhahdaa la ilaha illa allah muhammadur rasulullah there is no God but Allah and Prophet Muhammad the messenger of Allah qof kasto ku dhawaaqaya la ilaaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ku galki iyo fiisi uu ku gali lahaa Maka iyo Madiina waa u haystaa waa labadaasi makaan ee sharafta badan waa laba mandiqo oo amni ah fiisaha lagu galayna waa inaad qirtaa in uu jirin Allah xaq lagu caabudaa Allah mooyee nabi Muhammadna rasuulka Allah inuu yahay ya nafsu in lam tadfari لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري